wadigii siyaasadana in badan ku dhex jiray xilal kala duwan ka qabtay bal imika horta halka xaruntaadu tahay iyo waxaad ku hawlan tahay marka hore ee faahfaahinta wadayaasha isbarashaan naga sii بسم الله الرحمن الرحيم marka hore qoladiina TV-ga iyo khadarba iyo Axmed Xuseen baan salaamaya mar labaadkana su'aasha aad weydiisay waxaan ku hawlanahay wax qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliland dari ku hawlanyahay oo ah inaynu qaranka yareeyo biyabkaahun wanaajintiisa iyo kaalinta maalinba aad buuxin karto laakiin hawlaha aan qabtaa waxay u badan yihiin private way Cabdilaahi waxa la xasuusanayay in markii xisbiyada abuurmeen aad ka mid ahayd ragii xisbiyada walaalinaya qaarkood waliba xisbiga wacid ma ku jirtaa wali mise xisbi kale uga diga rogtay su'aashaasi waa su'aal wanaagsan horta aan ku warramay marka hore xisbiyada lagu dhawaaqayay anagu xukuumadda baan ka mid ahaa الله يرحمه وحا مدحويناها محمد إبراهيم عقال لأن حريصة جناة كورابيو مركا أنوغي أساسكي قولي وسير هذا يقول واقعي معلنتها كمد بام لكن أنوغو إسلام معلنتها أنوغو وسيرة وحان شاقين أنو عضين دونو أعد سببت أنوغو عضين إنما يهين أضبو أن كمد هاي أو عن نعبه سببت وحي هاي أعد oo aan markaa ku lahaa saaxiibo dhowr ah walow saaxiibadayda asligii ay kulmiyaba ku badnaayeen iyo ururkii loo jiray asad oo SNMT ah maanta dalkii saddex xisbi baa isugu soo ururay waan madax bannaanahayo sida adigu aad madax bannaan tahay muwaadin caadi ah baan ahay aniga taladayda waxaan biday oo aan u qaatay inuu majarihii hayo dariiqii halganka xisbiga koomiye laba sababoodba sababta koowaad waxa weeye haddii khadaroo aad baabuur wadato oo baabuurkaagaasi waddo u marayo oo nin kaa soo horbaxo oo intaad baabuurkii joojiso uun aad furi u dhibto tiraa ina dhaqaaji ninkaas meel uu ku geynaya garan maysid ilaa meelba ka midaan wada socon nimankan kulmiye waxay u badan yihiin raggii furaha gaariga markii hore hayay ee halganku halku ka soo bilaabmay garanayay halku ku dhamaanayana ku talagal ka lahaa sababta ugu weyn horta waa qodob sababta labaad ee aan u doorbidayna waxa weeye waa xisbi muujiyey in uu dalkan iyo dadkan badanka leeyahay markii doorashadu dhacday waad ogeyd maalin adag bay ahayd wixii lagu kala helayay ee la carabaabay wax muu ahayn xisbigii tanaasulka sameeyey ayuu ahaa waxaan arkaa markaa inuu yahay xisbi ubadkayga iyo hooyadayba ka naxaya laakiin Cabdilaahi halka marka ku yaraha kano dad badan baa kuga eedeeyay adiga Cabdilaahi in markii doorashadu ay dhacaysay waliba maalintii hawshan lagu jiray adigoo xisbiga oo cid waliba waqtiga ahaa in haddana aad ka xaglinaysay labada xisbiye kale aanay ku sinnayn oo kulmiyaad wax u wadeeyo raggii laga fadhiyay waayaad kamid ahayd maalinta goobtii cod bixin meelaha qaarna aad sooba kasal gareysay oo adigoo muraaqib ahaa oo ciidaha tiri si wax u socdaan ku qanac ma qanacsani khadrow su'aashaasi waa su'aal la isla meeraysto badanaa waxa propagandada fidiya qaar aanay ahayn inay fidiyaan waa nasiib darro in niman udubi ay yiraahdaan Cabdilaahi Cukuso oo u cidada kulmiye nooga heliyo foodkii u buriyay haddii bahashu ay ahayd bahasha la isu burburin karayo inay helaan ma ahayn inay doorashada helaanba ma ahayn marka kii helay inuu yiraahdo bahashu way kharibnay ma aha midda labaad anigu muraaqib baan ahaa commission maan ahayn muraaqib udubaa joogay muraaqib kulmiyaa baa joogay muraaqib u cidaan ahaa u cid inay badsato ayaan jeclaa laakiin midna uguma dari karaynin midna kama jarayno anigaaba u joogay udubna mid ay leedahay ma jari karaynin kulmiye mid aanu lahayn kuma dari karaynin mid aanu lahayn kulmiye haddii wuxuu lahaa aan ugu daray inuu foodka helaaba helo way dhinaca kale midna markaa soo qaadato xaggan kala helaanshihii iyo waqtiga aynu ka soo kicitimo Cabdilaahi ahaan waxa la yiraahdaa Cabdilaahi Maxamed Daahir waa nin faraha laga gubtoon cidina sida kale oo bil gudahood ilaa 3 wasiir ku xigeen isu marayo wasiirkii markaaba ay isqabanayaan shakhsiyadda maxaad ka aaminsantahay dad ku tilmaamay su'aal wanaagsan weeye maalin dhaweydna gees baa jariidada wuxuu ku qoray waryar waxaan horta sheegayaa ninka gees la yiraahdaa taa inuu xaaliga siiyay
wuxuu xaalkaygaga siiyey tiradii uu ku qoray jamhuuriyadda fatiraheeda xasan siciid oo aan wada soconno hortiisa ayuu xaaliga siiyey inuu qalinkiisaasi qaldanaa waa qodob gees wuxuu ahaa ninaan wada shaqaynayno wasiir ku-xigeen aanu ahaa annagoo isku wanaagsan ayaana labadayadaba xilkan nalaga qaaday markaa maan garanaynin wax uu ka yara bacoobay wuxuu ka bacoobay sababtii xilkan looga qaaday in aan wax ku lahaa isagoo ilowsan in anna layga qaaday waa qodob taa labaad waxa weeye anigu mas-uuliyadaha aan soo qabtay way badan yihiin min jagadan iminka adigu aad hayso ee wariyanimo oo aan idaacadda ka ahaa min agaasimanimo oo aan idaacadda ka noqday min wasiir ku-xigeenno oo aan dhowr meelood ka noqday min maayar ku-xigeen aan magaalada ka noqday way badnaayeen midnabana anigu ismaan geynayn iskamanaan kaxaynayn laakiin cid aanu isqabannay ma jirto marka laga reebo nin qura ninkaas maan ogahay inaanu isqabannay ninku wuxuu ahaa cabdilaahi maxamed ducaale wasiirka warfaafinta ah ma jecli inaan ku joogsado arrintaa oo siro badan oo qaranku leeyahay bay dabada ku haysaa arrintaasi laakiin haddii aan carabaabo oo keliya wasiirku markii uu noo yimi anigu wasiir ku-xigeenkii cali waran caddaan ahaa oo ka horreeyey isaga markii aanu si fiican ugu tirinay meeshii aniga warqad ammaan iyo bogaadinaba ii qoran 9 cisho dabadeed waannu isqabannay markii madaxweynihii noolaa ee maxamed ibraahim cigaal uu gartayadii qaadayna wuu iga beddelay meeshii oo wasaaradda maaliyaddu igu beddelay isaga oo igu abaal marinayaba oo inaan ka jid leeyahay laakiin wixii aan isku qabannay waxaa ugu weynaa oo maalmahaa taagnaa salaadiintii guriga lagu hor joogay halkan axmed guray iyo sida idaacaddu ula dhaqmayso aniguna isaga waan uga waaya aragsanaa sida idaacaddu ula dhaqmayso waayo salaadiinta idaacadda tv-ga warfaafintu sida u shaqayso waan uga waaya aragsanaa war idaacaddu arrinkaasi salaadiinta wax xun ka sheegi mayso laakiin inay shirbeeleedku inoo xun yahay wakhtigan ayuunbay ka hadlaysaa isaguna si kale u arkay cabdilaahi laakiin hoos ugu daadeg marka la yidhaahdo cabdilaahi maxamed daahir gaar ahaan marka laga hadlayo halkaa xilalka oo kale ama xukuumadda oo kale waxa la yidhaha waa nin jecel inuu ku takrifalo ama qabsado isagu awoodda goobta oo wasiirkii sidii la doonayay inuu la dhaqmo aanu la dhaqamayn way dhacdaa waana dhici kartaa laakiin aniga wasiirka yeesmaan noqo iga doona de kama yeelayo wasiir ku-xigeen inaan ahay inaan dhaafana ma aha laakiin wasiirka aniga kuri baabuur liftiya haddaad aan isleeyahay ormalaha niyo ninkan odayga ah masalan ninka lagu idhaahdo doodi ayaa wasiirka maaliyadda ahaa ana wasiir ku-xigeen baanu ahaa maalin qura ayaa la kordhiyey sarifka maalin qura dabeetana dalkoo dhan qayliye berberaaba cashuurtii istaagtay hargeysaaba jaadkii xabaddu ka dhacday xalkii arrintaasi waanu ku kala duwanaan isagu wuxuu arkayey in la dawladeeyo oo ciidamo iyo technika la kaxaysto kontrabaan jaad lala dagaalamo dekeda berberana qasab dadku ay wax ku cashuurtaanoo annaga waxaa sidaa uma arkaynin sidaa si ka duwan baan u arkayoo inay ku fulan tahay in dhiil lala galo oo dadka lagu qanciyo waxaanu sidnaa inuu macquul yahay wixii ay liqi karaan ay qaataan wixii kalena aanu ka dayno ayaanu arkay taydii baanay noqotay laakiin halkaasoo kale sheeko suuqa usoo baxday baa jirtay oo waktigaa taliya ciidanka booliiska dhegaweyne la yidhi muxuu ahaa cabdilaahi waxa ay rag jaadlayaal dhiil wada galeen oo dabeetana arrinta jaadlayaasha la fuliyo isagoo xukuumaddii ku jiro deedna ismooday inuu qof shicibahoo suuqa jooga marka arrintaas hadday sidaa aniga ahayd maxamed ibraahim cigaalla u ahaa aniga iyo maxamed ibraahim cigaal baanu ahayn allah yarxamu iyo axmed yuusuf ducaale iyo cabdilaahi cadde oo wasiirka daakhiliga ah iyo belel oo wasiirka beeraha ahaa guddidii loo saaray ee arrinta jaadka gashay anigu ka ugu daada yar baan ahaa waaye arrin kale aynu soo qaadno xiise leh waxaa la yidhahdaa hadal baa jiray suuqa usoo baxay hadalkaasi inuu run yahay in kale waxaan jeclayna dadka aynu u bayaamiso waxaa la yidhaha markii si degdega oo adiga wasaaradda warfaafinta uga guuray adigoo wasiir ku-xigeenaa salimka sheegtay maaliyadda degdeg u tagtay dad badanna waxay xasuusnaayeen cabdilaahi ilaa markii hore shaqada halku soo bilaabay ilaa saxaafadda markii dambe waxaa
soo gashay suuqa in markii xil dambe Cabdilaahi loo dhiib waayay maxamed raaciga Allah yarxamo wuxuu ku yiri Cabdilaahi wasiir ay soo gashin markaad soo hesho oo idan ismaan dhaafeen ayaan shaqada muxuu ahaa meel kaaga dhiibay ma ahay sidaa khadar warqadda uu ii qoray imika inaan dee ka soo diyaar garoobay ahayd oo jabadaaban waan hayaa guriga taallaa wuxuu yidhi ereyga isagu isticmaalay waxay ahayd meel aad u madax bannaan tahay marka aan kuu helo ayaan ku geyn doonaa ee aniga isu guuray markaa wuxuu u jeeday waxaa tahay nin aanu wasiirkani xukumi karin saasuu isagu u jeeday waxaanay ahayd doodigaasi aan ku kala duwanaanay arrinta taydiina intii badnayd ay ku qanacday waana tii keentay in 7,000 ee laga dhigay sarifka kala badh la jaro oo 3,500 ee maanta yahay laga dhigo aniguna dee xabadda Hargeysa bartikeeda ka dhacaysa waan ka dambanayay 3,500 shilin Hargeysa xabad uga dhacdana arrin aan aqbali karayo ma ahayn intii dalka ka naxaysan way nala qaadatay way aanu soo noqonayaan imika inkastoonada saadii sheegteenadan xil haynin laakiin dhawaan waxa jirtay maadaama xisbiga uu cid ka tirsaneyd ba su'aasha ku weydiinay arrin wargeyska jamhuuriyadda ku soo baxday oo gudoomiyaha xisbiga uu ku tilmaamay haddii maxamed xashi la diidanaan cid ku soo dumay haddii isla markaana aanu maqli karin sidoo isagoo hadalka halka ku soo baxay oo ahaa in calaasad loo magacaabo maayer muxuu ahaayeen maareeyaha wakaalada biyaha Hargeysa sidoo aragtaa arintaadu Cabdilaahi ahaan anu waxaan u arkaa misalan ninka lagu raahdo Faysal waa gudoomiyaha xisbiga oo cid shakhsiyadiisa aanu ma galayo laakiin arinta maxamed xaashi iyo arinta calaasad baan ka hadlaya arinta maxamed xaashi waa muwaadin waa asaasayaashii SNM waa dadkii dalkan u soo halgamay waa dadka hoggaankiisa inay qabtaan ay bilmacna kelima tahay waa dadka xaq u leh inay ka taliyaan wixii ay u soo halgamayeen waa dadka hadday taladii fadhiyi waayeen ku samray in laga dhagaysto maanta taagan in laga dhagaysanna la yahay ee weliba iyagu ku samraaya mana qabato in la yidhaahdo maxaa la micirkaa soo dumaya midda labaad bosishanka loo magacaabay ee labada xisbi u magacaabeen nin u qalmabuha weliba anigu markaa kaftan ugu daree udubtay dan u ahayd baaban aaminsanahay sababtoo ah maxamed xaashi waa nin haddii uu dabadda joogo aanay kaba fadhigi karayninuu wax badan oo run ah oo waadixa mar walba mujtamaca u soo bandhigaya laakiin marka la yidhaahdo commissionkaa tahay waaba aamusnaan laha ku qasbanaan laha inuu cabursanaado marka iyagii hadday garanayaan damba u ahaan lahayd mana aha maxamed xaashi nin kulmiyana u buranaya maxaa u cidna u buranaya udubna ka argoosanaya mu noqdeen shakhsiyad lagu yaqaanana ma ahayn cali asadna maareeyaha biyaha ayuu noqday waa dhibic yar oo ka mid ah maamulkii uu gacanta ku hayay markuu maayarka magaalada ahaa biyuhu toos bay u hoos iman jireen ninka uu bedelayna waa Axmed Cali Dable isagaa geeyey tagada isagaa geeyey Axmed Cali Dable geeyey cali asad markaa uu maayarka ahaan jiray marka waxa weeye Axmed Cali Dable biyaha oo magaalada ka xiran uu soo furay uu ku mahadsan yahay mujaahid buu ahaa muwaadin shaqeeyay buu ahaa xilka qaadistiisa midaan ku farxi kara ma cali asad dhiibistiisa midaan ka xumaanaya ma waa mujaahid kale waa nin horena u soo xukumi jiray waa nin xaq u leh markaa anigu laba inan oo labaduba reer Hargeysa yihiin oo labaduba biyaha ka talin karaan baan aaminsanahay inay saameyn ku yeelan kara wadada dhawaqaan gudoomiyaha cidoo kale ama maxaa kalifa loo oran karaa in waa nin siyaasi xilka madaxweynaha ama madaxweynenimo ee dalku u tartamay wallahi waxay markuu xisaabtamay isaga arki doona midhaheeda way dhinac kale soo wareegno imika xaaladda dalku ku jiro nin muwaadin oo dalka gacanta ku haya in joogaad ama aragtidiisu ay dheer tahay maxaad ka aaminsantay maanta xaaladda doorashooyinka marka la eego iyo waaqicigeena hor yaala anigu waxaan aaminsanahay arrinta ugu muhiimsan waa arrinta baarlamaanka waa qodob arrinta labaad ee ka sii khatarsan ee muhiimkiina waa tu tallaabo ka hadlaya habeen dhaweyd oo waa arrinta gobollada bari iyo waxa xukuumadda uga qorshaysan oo tallaabo bay noo sheegay dee inaanay maarkin arrinta kalena waa Cabdilaahi Yuusuf iyo wuxuu la iman doono anigu waxaan u arkaa inuu dalkeenu maanta ayay dadku moodaan in uu meeshii ugu sarreysay marayo markay dee ku akhriyayaan qaybta maasha allahda markay akhriyayaan laakiin anigu waxaan anoon wegartii akhriyaynin arkaya maanta maalinka adag horeba umay soo marin maalin imbagaatiyo soo guurtay ay imanayso
maalin aanad dalkaagii adoo 15 jirsaday qayb dhan oo ka mida gacantaba ku haynin gacantaba aanad ku haynin maalin weliba hoggaankeedii aanu wax wadaxo cadoo uga qorshaysan inoo sheegin oo aanu ina tusin maalin haddana taasay tahay doorashooyin inay dhacaan laynaga doonayo si kastaba ha ahaatee inay doorashadu dhacdaaba qasaba xal kale oo aan doorashadaas si baarlamaanku inay dhacdo ahayn dalkii umad yaallo in saami la isku qabqabsado oo la yidhaahdo marna reer hebel baa cadhoodo beri dareeray mar kalena la yidhaahdo madaxweynihii baa yidhi beeshayadaaba mise muxuu yidhi talo gobolka iyagaasaala jagadaa yeelanaya arrintaasna waa nasiib darro dalka u taalla arrin kale oo muhiima oo meesha taalla waxa weeye maxay yidhaahdaan baarlamaanku xeerka uu sameeyey ee cabdilqaadir jirdana maalintii dhoweed lalahaa uu iska casilay markii waxba ay ka dhagaysan waayeen ama qolada kalena ay ku doodisay innagaaba guddiyo xaq u lahayn inaan anagu soo samayno arrinkaas arrin shacbiga u yaalla maaha cabdilqaadir iyo guddida iyo baarlamaankaba shacbigu wuxuu ku leeyahay oo xaq ugu leeyihiin inay u soo saaraan xeer inay xeer u soo saaraan maanta guddigan kaa dhaqay cabdilan maanta tii guddiga arrimaha gudaha dib baa loogu celiyay xeerkii dabadeetana waxay soo dhigeen maanta xeer cusub ay final draft ku tilmaameen kii ugu dambeeyey isla markaana ay ku soo saleeyeen inay lagama maarmaan tahay in doorashooyinka baarlamaanka ka hor la sameeyo tirakoob qodobka isku soo raacayna uu kaayay golahana la doonayay in lagaga doodo arrinta laga gaarsiinaya tirakoob maanta doorashada maarjo khadar waxa weeye maantana waxba socon maayaan wey maantana noo kordhiya wey maantana aanu sii joogno un wey dabeetana dalku sidan ha ku sii jiro un wey waxa weeye bilaa macnigaana dalku iyo dadku intuu dhagaysan karaa way yar tahay bay tahay weelkuna hadduu mugdiisa dhaafo wuu daataa laakiin qaybe gudoomiyey wakiilada isla barnaamijkan haladay dhawaan maraan ku casino wuxuu sheegay in bisha May haddii waxba la suuro gelin waayo ee waqtigu uu kaga dhanyahay golaha wakiilada inaanu isagu xilka qabanayno siina joogin iska tagayo iska doyn joojinayo qayboonu inuu siyaasiyo malaa wuxuu garanayaa hawadu deeqayaas waxaan ku yidhi doorkan maanta ninkii dalka burburkiisa diyaar u ahay waa ninka doorashada carqaladaynayo way xukuumadda kale markaad eegto khudbadii sanadaadii madaxweynuhu jeediyay darmaantii dhaweyd wuxuu ku sheegay inay muhiim tahay xukuumaddana xilliga weli madaxweyne ahaan xilligu aastay ay ka go'antay qabyana way jirtaa say isu qabanayaan cabdilah waqtigeeda markaa inaad waxaan ku yidhi mushkiladda dalka haysataa waa intana anoo madaxweyne ah oo dalkii xukma oo awooddii ilaahay gacanteeda ku ururiyey oo shacbigii sugayo haddaan idhaahdo waxaan go'aamiyey sidaasi oo haddana wixii socon waayaan bal anigu magacaan isu bixiyo de anigu markaa aan magac isu bixiyo ama aan daciif isku sheego ama aan nin waxba kari waaye isku sheego ama nintiisi meel martay aan